waxay ahayd gabar saalixad waxay u naxariisan jirtay waalidiinteedii aad bay u jecleed waxay ka xumaatay waalidiinteedii oo shil baabuur galeen runtii way soo qaaday waxay keentay istaalka ayay keentay markay istaalka keentay runtii aad bay u naxariisan jirtay waxay dhigan jirtay jaamacadda kulliyadda dhakhtarnimada ayay baranaysay markii waalidiinteedii ay ku dhaceen shil baabuur ayay jaamacaddii ka tagtay waxay bilowday inay shaqo ay ka bilowday isbitaalka waalidiinteedii ay jiifaan run ahaantii gabadhan waxay u baarifali jirtay waalidiinteedii maalimaha ka mid wuxuu yeeray mudiirkii isbitaalka wuxuu ku dhahay waxaa jooga bukaan qolkaas wuxuuna u baahan yahay daawooyin in la siiyo ee ka cutag oo daawooyin soo sii gabadhii markay wiilka u tagtay runtii waxay la kulantay wiil saalix wiil ilaahay subxaana watacaala ka cabsanay wiil masaakiin wiil hadallada ku hadlaya hadalla qiimo ku taagan runtii wiilkii way la yaabtay daawooyin ayay siisay wuxuu qaadanaya amarkeeda ayuu qaadanayaa runtii asagana wiil wuxuu ahaa maasha allah ilaahay subxaana watacaala ka cabsanayo gabadhii uu jeclaaday markuu jeclaaday ayuu usoo bandhigay inuu guursado gabadhii iyadana waxay ka heshay wiilka dabeecadiisa iyo akhlaaqdiisa ayay ka heshay wayna ka ogolaatay inuu guursado ilaahay fadligiisii gabadhii uu guursaday markuu guursaday wuxuu keensaday gurigiisii waxaa kula nool walaashiis iyo walaalkiis ka weyn runtii wiilkii aad bay u necbanaayeen muddo 9 bilood ka bacdi gabadhii ilaahay fadligiisii waxay qaaday uur ayay qaaday markay uur ay qaaday runtii aad bay u faraxday ilmaha caloosheeda ku jira inay hooyo u noqon doonto balse ilmihii intuu dhalanin waxaa loo soo sheegay ninkeedii inuu geeriyooday runtii markay maqashay geerida ninkeedii waxay uga shakisay walaalihiis inay dileen ilaahay fadligiisii waxay dhashay wiil ayaa dhashay iyadoo wiilkeeda korsanaysa oo caanuujinayso nasiib xumo haddana wiilkeedii ayaa geeriyooday markuu geeriyooday gabadhii aad bay u murugootay balse ilaahay subxaana watacaala ayay tala saaratay waxay dhistay mashaahidkani waxay u bixisay magaca ninkeedii haddana waxay dhistay madrasa ayay dhistay madrasadii waxay u bixisay wiilkay dhashay magaciisa runtii gabadhii waxay ku laabatay jaamacadeeda ayay ku laabatay waxayna sii wadatay kulliyadii dhakhtarnimada ay wadatay runtii way sabartay waxaa lagu jiray bisha ramadaan waxay ahaayeen qoys faqiir bay ahaayeen runtii waxay ka warsanayeen afar waxay cuni lahaayeen iyo suxuurtii waxay cuni lahaayeen runtii ninka guriga iska lahaa aad buu u murugaysan yahay maadaama caruur ay guriga u joogaan reerkiisii ay baahan yihiin wuxuu kaloo haddana ka walwalsan yahay kiradii guriga lagu lahaa markay dhammaatay bishii waxaa u imaaday ninkii guriga iska lahaa wuxuu ka rabay lacagtii ayuu ku dhahay walaalo lacagtii ma hayi balse waan ku siinaya ay dul qaado ninkii wuu xanaaqay lacagta waa inay isiisaa ninkii wuu dulmiyey wuu ku istaagay lugta ayuu madaxa ka saaray ninkii faqiirka ahaa runtii dhiig badan ayaa ka baxay wuu murugooday ninkii asagoo murugaysan ayuu guriga kusoo laabtay markuu guriga kusoo laabtay ayuu 2 ragcadood sunno ayuu tukaday ilaahay subxaanahu watacaala ayuu gacmaha kor u taagay isla habeenkii ninkii waa lagu soo booday markii istaanka ligay ayaa lagu dhahay waxaa qabtaa kansar ayaa qabtaa lugta ayaa laga jaraya haddii la jiri waayo kansarkan jirkaada ayuu kusii faafayaa waxaa u maada islaantiis ayaa u maada waxay ku dhahday dhibaatadan waxay kaa soo gaartay ninkii masaakiinka aad dulminaysa ee asaga u tag cafis soo weydiiso wuxuu u tagay ninkii faqiirka ayuu u tagay laabta ayuu geliyey wuxuu ka dalbay inuu cafiyo maadaama khalad weyn uu ku dhacay faa'iidooyinka leedahay ducada wuxuu ahaa nin dhakhtar wuxuu rabay
inuu soo fuliyo qaliin lagu soo qayliyay bukaan jiifa isbitaalka. Wuxuuna damcay inuu raaco diyaaradii markuu galay ayaa lagu dhahay cilad awgeed ayaa ku imaaday diyaaradii, marka waxay dib dhacaysaa 3 saacadood. runtii dhakhtarkii wuxuu rabay inuu ka gaaro bukaankii lagu soo qayliyay. wuxuu u tagay ninkii mudiirka xagga diyaaradaha u qaabilsanaa. wuxuu dhahay aniga meel baan u dhaqsanayaa, bukaan ayaa ii jiifa, marka bal wax ii samee si aan meesha ku tago. ninkii mudiirka wuxuu dhahay runtii aniga waxa ma sameyn kari, balse waxaan ku dhihi lahaa waxaad qaadataa baabuur qaado si aad meesha aad dhaqso u gaartid. dhakhtarkii wuxuu soo qaatay baabuur ayuu soo qaatay, asagoo dhexda soo marayo jabigii ayaa isbedelay. roob fara badan ayaa imaaday. wuxuu ka dhumay wadada ayuu ka dhumay. wadada markuu ka dhumay ayuu gaariga dhinacu istaajiyay. wuxuu arkay buul yar ayuu arkay. buulkii yar ayuu qarqaraacay. waxaa u soo baxday haweeney. waxay ku dhahday soo dhawow. wuxuu ku dhahay dhakhtarkii waxaan u baahan yahay telefoon inay igu caawiso. runtii haweeneydii waxay dhahday halkan ma yaalo telefoon, meesha dhan waa light la-aan, balse waxaan kugu soo dhaweynayaa cunto iyo sharaab. runtii dhakhtarkii wuu la yaabay haweeneyda si u soo dhaweysay quruxda badan. wala sheekaystay. waxay ku dhahday aniga keligay ayaa meesha degan, waxaa ii joogaa wiil yar oo ayay aan u ahay. runtii wiilka aad buu iga xanuunsan yahay. ilaahay subxaanahu watacaala ayaan gacmaha u taagay, waayo aniga keligay ayaan guriga joogaa. wiilka yar wax istaal egeynaa ma laha maadaama aniga curyaan aan yahay. runtii dhakhtarkii wuu la yaabay sidaanta xikmadeedii iyo ducada ilaahay subxaanahu watacaala oo laga aqbalay. dhakhtarkii wiilka yar ayuu qaaday, wuu soo daaweeyey, wuxuu ku soo celiyay guriga ayuu ku soo celiyay. runtii haweeneyda iyadoo faraxsan ayay u sii duceysay dhakhtarkii. waxay ahayd haweeney saalixad oo ilaahay subxaanahu watacaala si dhab ugu cabsan jirtay. iyagoo wadada soo marayaan waxay aragtay haweeney cunug xambaarsan. markay aragtay runtii aad bay ugu murugootay. gaariga ayay u istaajisay. waxay dhahday hor ayaan kuu sii qaadaynaa ee soo dhawow gaariga soo gal. markii gaariga ay soo gashay wiilkii yara oo xanuunsan waxay u waday isbitaalka ayay u waday. wiilkii yara ayaa hadlay. hooyadiis ayuu ku dhahay hooyo macaan, daawooyinkan saa u cunay waan ka daalay, xaggii ilaahay subxaanahu watacaala kormaan aadi doonaa. yacni wuxuu ka wadaa goormaan dhiman doona aniga, waan ku daalay daawooyinkan saa u cabaayay. runtii islaanta saalixad aheyd way la yaabtay wiilka. wuxuu leeyahay waxay ku dhahday yaa xabiibii, wiilkaygiiow daawooyinkan waa ku caafimaadaysaa, waxaad tala saarataa ilaahay subxaanahu watacaala, caafimaad taam ayuu ku siin doonayaa. runtii islaantii wiilka dhashay marwadii saalixadda ayay ku dhahday anaka maxaan nahnaa fuqaro ayaan nahnaa, daawooyinka badan ma helno, mar waa helnaa marna waxaan ku gadana ma haysano. runtii marwadii saalixadda ahayd waxay dhahday aniga ayaan isbitaalka geynaya, aniga ayaan lacagta shubaya. muddo dheer ka bacdi waxaa lasoo gaaray isbitaalka ayaa lasoo gaaray. marwadii saalixadda ahayd wiilkii ayay soo waday, isbitaalka ayaa la geeyey, waa la daaweeyey. markii la daaweeyey lacagtii iyada ayaa shubtay. runtii iyadoo faraxsan, waxay ku faraxsan tahay sadaqada ay baxsatay. way soo laabatay, waxay soo raaceen iyada iyo wiilkeedii. runtii wiilkii ayaa hooyadiis ku dhahay hooyo macaan, runtii hooyo kaa fiican adduunkan kuma haystii. wuxuu ahaa wiil bulshada ay jecel yihiin. markuu nafaas helay wuxuu soo booqan jiray isbitaalada, ayuu soo booqan si uu u caawiyo bukaanada meesha jiifaan. runtii wiilka wuxuu ku hamin jiray inuu mar un shaqo u helo. maalin maalimaha ka mid ayuu shaqo wuxuu u raadsaday shirkadda soo saarta kalluunka. markuu shirkadda tagay ayaa gacmo furan lagu soo dhaweeyey. runtii waxaa laga qoray, shirkadda ayaa laga qoray, waxaa la dhahay hadda ka bacdi waxaa ka mid ah shaqaalada shirkadda ka shaqaynayaan. muddo dheer ka bacdi isagoo shaqadiisa si fiican u wato wuxuu bilaabay in dadka meesha ka shaqaynayaan kalgacayl fara badan uu ku abuuro, qalbigooda uu soo jiito.
balse nasiib xumo maalin waxay iska hor imaadeen ninkii xaariska ahaa oo washmanka ayay isku buuqeen, ayay isku qayliyeen. Markay isku qayliyeen, runtii wiilka wiil fiican ayuu ahaa. ninkii xaariska ayuu waaniyey, wuxuu dhahay waa iga weyn tahay inaan kula murmo ma rabi. wuxuu sii kalimooyin fiican ayuu siiyey. ninkii xaariska ahaa wuu khushuucay. asagoo khushuucsan waxaa soo dhexgalay ninkii mudiirka shirkadda ka ahaa ayaa soo dhexgalay. runtii wuxuu la yaabay wiilka hadalladu ku hadlayo. maalin axad ay ku beegan tahay, wiilkii shaqada wuxuu soo galay amin hore ayuu soo galay. markuu shaqada amin hore soo galay ayuu isdhahay shaqadaadii sii bilaabo. asagoo shaqadiisa wato ayuu galay qol ayuu galay. qolka ma laha dirishada, albaab bas ayuu leeyahay. asagoo qolka ku jiro, qolkii ayaa kor loogu xiray. runtii wiilkii qol dirishada lahayn, neefta ayaa ku dhagtay, taagnida ayuu ka dhacay. saacada dheer ka bacdi, ninkii xaariska ahaa wuu imaaday. asagoo albaabaha furaya, wuxuu furay qolkii wiilku ku jiray. qolkii markuu furay wuxuu arkay wiilkii oo meed oo nafta ka baxday. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. runtii ninka xaariska aad buu u naxay. ninkii mudiirka ayaa imaaday, wiilka yaa dilay. runtii arrintii waxay noqotay arrin fajac ayay noqotay. ninkii xaariska ayaa lagu dhahay adiga u sabab wiilkan dhimashadiisi. ninkii xaariska muxuu dhahay wallaahi thumma wallaahi, wiilkan runtii aniga saameyn badan ayuu iigu yeeshay. mudiirkii markuu dhageystay wuu aaminay, waayo wiilka wuxuu ku ogaa wiil fiican ayuu ku ogaa. balse labadooda qalbiga waxay ka dhaadhiciyeen ilaahay subxaanahu watacaala inuu oofsaday. waxay u imaaday dhakhtarada iyadoo oynayso. waxay u sheegtay gabadheedii inay markastuu ku wareerisay ee dhahdo waxa ay sheegtaa hooyadayda runta, waayo adiga hooyaday ma tahdid. dhakhtaradii hadalkeeda markay dhageysatay, runtii aad bay ula tacajubtay. waxay weydiisay ninkeedii inuu wiil qabo. waxay u sheegtay inay ninkeedii 3 sano ay kala tageen. runtii dhakhtaradii way ogaatay dhibaatada meesha ka jirto, waayo dhibaatada waxaa keenay waalidiinta oo kala tageen. gabadhii markastoo ay guriga imaado waxay ku wareerisaa ii sheeg hooyadayda xaqiiqada. dhakhtaradii ayay kusoo laabatay mar labaad. waxay dhahday gabadhaydii weli sidii ayay u leedahay. runtii dhakhtaradii way ogaatay. waxay dhahday gabadhaadii guriga markay joogto yaa u imaadaa. waxay dhahday guriga waxaa u imaadaa Umu Leyla ayaa u imaadaa. way weydiisay Umu Leyla yaabay. waxay ku dhahday Umu Leyla waa ninkayga islaantiisii hore. dabcan gabadhaydana iyada ayaa soo korisay. aniga markii ninkayga aan kala tagnay, gabadhayda iyadoo yar ayuu iga qaatay. wuxuu u geeyey Umu Leyla ayuu u geeyey. iyada ayaa soo korisay, iyada ayaa soo tarbiyeysay. runtii dhakhtaradii markii hadalkaas maqashay waxay u yeertay Umu Leyla. Umu Leyla way weydiisay. waxay dhahday gabadhan anigaa soo tarbiyey, runtii hooyadeed camal bay ii haysataa. hooyadeed camal. aabaheedna wuxuu ugu sheekeeyey Umu Leyla inay hooyadeed macaan ay tahay. runtii dhakhtaradii way fahantay cilada meesha ka jirto. waxay u yeertay gabadha yar, aabaheed ayay u yeertay. waxay ku dhahday runtii khalad weyn ayaa sameysay. gabadhi yareed hooyadeed dhabta waatan, balse waxaa ugu sheekeysay hooyadeed inay tahay Umu Leyla. dhakhtaradii ninkii talo fiican ayaa siisay. waxay dhahday maadaama gabadhaada ee Umu Leyla u haysata hooyadeed, Umu Leyla soo cesho maadaama horaan u furtay. markaad soo ceshata Umu Leyla waxaa laga yaabaa gabadha inay hooyadeed ay jeclaato. Umu Leyla waa la soo celiyey. gabadhii farxad ayay ku noolaatay. markastoo waxay ku mahadaysaa ilaahay subxaanahu watacaala siiyey 2 hooyo. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. wuxuu guursaday gabar saalixaad oo ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsanayso. markay isguursadeen, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu irsaaqay inay isku dhalaan wiil. iyadoo foolanayso oo istaalka joogto,
wiilkii ayaa loo soo sheegay in hooyadiis ay geeriyootay. Hooyadiis ayuu soo xabaalay, guriga ayuu ku soo laabtay. Labadooda guriga joogaan ayay xaaskiisa ka codsatay. Waxay dhahday maadaama hooyo ay dhimatay, aabbo halkan ayaan keenaynaa si aan u ogaano aabba xaaladiisa. wiilkii wuu ku waafaqay, aabbana guriga ayaa la keenay. Muddo dheer kabacdi odaygii wuu sii duqoobay. Wuxuu bilaabay inuu waxyaalo badan hilmaamo sida carruurta camal. runtii wiilka aad buu u nici jiray aabihiis. markuu hataa wiilkiisii uu ciyaarsiinaya, aabihiis wuu ka ilaalin jiray. wuxuu dhihi jiray odaygan wiilkaadii amuu kaa dilaa, maadaama asaga maskaxda uu beelay uu oday da' uu noqday. subxaan allah. maalin maalimaha ka mid ah waxay soo aadeen meel saxaro ayay soo aadeen. iyagoo meesha saxarada fadhiyaan oo iska baashaalayaan ayuu aabihiis ayuu waday meel ayuu geeyey, meel cidna ayuu geeyey. markuu geeyey xaaskiis ayuu ku dhahay cunuga noo soo qaad ee iga daba imaa waan baxaynaa. balse xaaskiisa waxay ahayd gabar caqli badan, gabar xikmad badan. cunugeedii ee dhashay iyo u dhiibtay, odaygii ayay u dhiibtay. waxay dhahday aabba macaan ii haya waan soo laabanayaa. ninkeed ayay soo raacday, gaariga ayay soo gashay. markii gaariga soo gashay ayuu ku dhahay wiilkaygii. waxay ku dhahday wiilkaada waxaa oo soo tegay aabbaha ayaa oo soo tegay, aabbaha ayaa haya. waxay ku dhahday ninkaygii aniga waan la socday markii aabbaha meesha cidlada aad geynaysay ina oo soo tegayso waan ka warhayo, balse haddana waxaa u dhiibay wiilkaada ayaa u dhiibay. haddaa oo tagta aabbaha duurka iyo cidladaas, adigana wiilkaadii aad dhashay yaa mar unsaan kuu samayn doonaa. runtii wiilka wuu isbedelay, wuu ooyey. ilmo fara badan ayaa kasoo daadatay. aabihiis ayuu u tagay. wuxuu u tagay aabihiis oo cunugiisa haayo oo ka ilaalinaya yeyga. runtii aad buu ooyey. aabihiis u tagay, laabta ayuu geliyey. wuxuu ka baryay inuu cafiyo dunuubta badan oo soo geli jiray. wiilkii aabihiis ayuu guriga ku soo celiyey. wuxuu noqday wiilka aabihiis markastoo garab siiyo u gargaaro. markastoona wuxuu ku mahadiyaa ilaahay subxaanahu watacaala. wuxuu kaloo ku mahadiyaa gabadha uu qabo xaaskiisii oo waana fiican siisay. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.